abudu aqna lama keeni karo santuuqa madow horey baan u diidnay عوض أقبل دوم ماهن عوض أقبل دوم ماهن قبورة قفته ويادي سقر كلام حلو ويا قبر كلام حمر السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود الواحد كسر واتان قضبضة وررك كو وقدر كورونا وحقيب كنقنية beesha mariixaan oo markani soo bandhigtay hubkii ugu tirada badnaa iyadoo markani magaalada Cabudwaaq laga dareemayo saanad military oo markani ay soo bandhigeen saraakiil sarsare oo ka tirsan markaasi beesha mariixaan iyagoo markani ku dhawaaqay in dagaal ka dhanaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhigi doonaan magaalada Cabudwaaq ee maamul goboleedka Galmudug iyagoo markani sheegay in aysan magaaladaasi ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah waxa ayna si cad u sheegeen in markani ka soo horjeedaan doorashada uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxaa ka jira in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu gadaal ka riixayo markani saraakiishan mariixan oo markani soo bandhigay hub iyo sidoo kale saanad military waxaan ku wadaagi doonaa macluumaad iyo sidoo kale xogo kala duwan oo ka soo baxaya magaalada Cabudwaaq oo haatan laga dareemayo saansaan ciidan oo markani ay sameynayaan saraakiil ka tirsan markaasi ama ciidan ka tirsan markaasi beesha mariixan oo markaasi ka soo jeedo madaxweynihii sagaalaad ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka iskiisa madax banaanida isugu dhawaaqay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo maanta arin in badan dad Soomaaliyeed ka yaabisay ka sameeyay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaas Israa'iil isagoo markaani ka degay magaalada Israa'iil waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha markaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu hadaba muxuu diiradda saaran yahay safarka madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro isagoo markaani isaga iyo wufuudiisa lagu soo dhaweeyay magaalada Tel Aviv ee caasimadda markaasi Yahuuda hadaba maxay yihiin markaasi mashruucyada ay ka wada hadli doonaan labada dhinac ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya senator Muuse Suudi Yalaxow uu hubkiisa kala baxayo magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Madiina isagoo markaasi hubkiisa ku wajahan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe waxaan kula wadaagi doonaa markaani cabsida soo wajahday general markaani amaandhehe Muuse Suudi Yalaxow miyaa laga cabsi qabaa markaani in dagaal uu dhaxmaro senator Muuse Suudi Yalaxow iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya oo markaani ciidamo isugu jira gorgor haramacad booliis military iyo nabadsuud duligtay markaasi siyaasiyiinta mucaaradka kuwa ugu tunka weyn oo markaasi hogaaminayo madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadaba maxay yihiin ciidamadani hor leh oo la duldhigay markaasi siyaasiyiinta mucaaradka ayaan kula wadaagi doonaa miyaa mar kale laga yaabaa in magaalada Muqdisho ka dhaco hardan ama dagaal aad u xoogan kaasi oo dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo sidoo kale markaasi qodobada kale inagu soo kordho ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal balse haddii ay tahay marka kugu horeysaan soo boqoto fadlan YouTube kana subscribe saar oo gambalka furo muuqaalkana like saar sina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawade ayna ku bilowno haddii aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya magaalada Cabudwaaq maanta waxa ka dhacay inaba caadi ma ahayn halkaasi waxa lagu soo bandhigay ciidan tiro badan iyo markaasi dabaabaadka markaasi dagaalka iyadoo markaani hubkii ugu tirada badnaa markaani lagu soo bandhigay magaalada Cabudwaaq ee gobolkaasi Galgaduud saraakiil sarsare oo markaasi ku heyb ah ama isku qabiil ay yihiin madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxay wacdaro ka dhigeen magaalada Cabudwaaq ee markaasi dowlad goboleedka Galmudug iyagoo markaani sheegay in ay diyaar u yihiin in ay markaasi dagaal toos ah la galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba muxuu yahay markaani dagaalka ay la galayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagu waxay sheegeen in magaalada Cabudwaaq guud ahaanba uusan ka dhici karin wax doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah sidaad ogtiinba dowladdu maalmihii ugu dambeeyay way ku holeen sidoo kalena siyaasiyiinta mucaaradka aad ay ugu soo horjeedeen balse maanta magaalada Cabudwaaq ama beesha mariixan si cad waxay u sheegeen in saduuqa madow kaasi uu wato madaxweynaha Soomaaliya marnaba aan la soo dhigi karin magaalada Cabudwaaq ee markaasi dowlad goboleedka Galmudug iyadoo markaani xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno ay warinayaan markaasi in ciidankan iyo sidoo kale saraakiishan uu gadaal ka riixayo madaxweynaha markaasi dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo markaani xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno ay ku soo waramayaan markaani in uusan raali ka ahayn doorashada markaasi ay wado dowladda federaalka Soomaaliya dabaabaad ciidan
hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale gaadiid dagaal ayaa markaani lagu soo bandhigay magaalada Cabudwaaq isku soo bax weyn ayaana halkaasi ka dhacay sidoo kalena saraakiishani beesha Mariixaan ayaana sheegay in aysan marnaba raali ka noqon doonin in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo magaalada Cabudwaaq sidoo kalena haddii Xasan Sheekh uu isku dayo markaasi dagaal xoogan uu ka dhici doono magaalada Cabudwaaq ee markaasi dowlad goboleedka Galmudug iyadoo markaani dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in maamulka labaad ee doorasho qof iyo cod uu ka dhaco ay rabto in uu noqdo maamulka Galmudug ee Soomaaliya kadib markii doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed ay ku guuleysatay sidii ay doonaysay dowladda federaalka Soomaaliya maamulka labaadna waxa uu noqonayaa in markaani Galmudug ay doorasho ka dhacdo sidoo kalena saraakiishani ayaa sheegay in markaani halkan aysan ahayn magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo waxay ula jeedaan haddii Xasan Sheekh uu markaani wuxuu rabo ka sameystay magaalada Baydhabo halkan waxa ay leeyihiin waa magaalada Cabudwaaq sidoo kalena waxa markaani awood ciidan iyo sidoo kale markaasi hub noocyadiisa kala duwan ku soo bandhigay markaasi saraakiil ciidan oo markaasi ka tirsan beesha madaxweynihii sagaalaad ee markaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya markaani war la yaab leh oo markaasi ka yaabiyay ummadda Soomaaliyeed kaasi oo ah in madaxweynihii maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cirro uu markaani ka degay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaasi Israa'iil dad badan waa ay la yaaban yihiin markaani in Cirro uu ka dego magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaasi Israa'iil sidaad ogtihiinba Israa'iil iyo sidoo kale Somaliland horay waxay u gaareen heshiisyo hordhac ah sidoo kalena markaasi caalamka ama sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi ku sheegtay inuu yahay heshiis beenaad balse maanta galinkii dambe madaxweynaha Cirro iyo Fuud uu hogaaminayo ayaa ka degay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaasi Israa'iil halkaasna waxa loogu soo dhaweeyay soo dhaweyntii ugu sareysay waana shakhsigii ugu horeeyay Afrikaan ah misna Soomaali ah oo diinta Islaamka haysta kaasi oo ka degay magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaasi Israa'iil safarkanna dood iyo sidoo kale muran xoogan ayaa ka taagan iyadoo wali dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka hadlin ujeedka iyo sidoo kale safarka uu Cirro markaani ku tagayo magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalkaasi Israa'iil qodobka kale haddii aynu eegno saaxiib yaal waxa qayb ka noqonaya markaani General Sani Cabdulla Gaab oo markaani diiday in uu hubkiisa iyo sidoo kale ciidankiisa uu markaani ku wareejiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya hadaba maxay tahay sababta ugu weyn ee markaani General Sani Cabdulla Gaab uu u diiday in hubkiisa iyo sidoo kale ciidankiisa uu ku wareejiyo dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dowladdu ay bilowday wajigii saddexaad ee hubka dhiska Sani Cabdulla ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa in markaasi hubkiisa uu kala baxo degmada Gubadley ee gobolka Banaadir isagoo markaani hubkiisa iyo sidoo kale ciidankiisuba ay ku wajahan yihiin dhankaas iyo gobolka Shabeellada Dhexe oo markaani generaalka iyo beeshiisa ee Harti Abgaal markaasi ay ku xooggan yihiin sidoo kalena halkaasi deegaano rasmi ah ay ku leeyihiin dhinaca kalena qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya Senator Muuse Suudi Yalaxow cabsi xoogan ayaa soo wajahday kadib markii dowladdu ay sheegtay in markaani wajigii saddexaad ee hubka dhigistu ay sameynayso generaalka ayaana haatan lagu soo waramayaa in markaasi xaafadda Madiino hubkiisi uu kala baxayo isagoo markaani beeshiisa Harti Abgaal oo markaasi ku biirayo taasi oo deegaanka ugu weyn ay tahay gobolka Shabeellada Dhexe qodobka kale ee ugu dambeeya haddii aynu eegno daawadayaal waxa qayb ka noqonaya markaasi dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo isugu jira gorgor haramacad nabad sugid iyo sidoo kale booliis militara oo dul dhigtay markaasi siyaasiyiinta mucaaradka kuwada ugu tunka weyn waxaana markaasi qayb ka noqonaya madaxweynihii sagaalaad ama madaxweynihii toddobaad ee markaasi jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidaad ogtiinba mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya muddo 20 saac gudahooda magaalada Muqdisho waxa ku dhaxmaray dagaal aad u xoogan dowladuna haatan mar kale waxa ay ciidamo cusub oo gaash ama hubab kala duwan wata ay dul dhigtay markaasi siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan madaxweynaha toddobaad Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyadoo markaani haatan mucaaradka ay soo wajahday cabsi xoogan kadib markii ciidamo hor leh markaasi guryahooda la dul dhigay guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadii ama sidoo kale shirarkii jiraa'id oo ay qaban lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa baaqday isagoo markaani madaxweynihii toddobaad xalay uu afka furtay sidoo kalena sheegay in markaani Xasan Sheekh uu duulaan ku yahay markaasi siyaasiyiinta mucaaradka waxa uu sheegay in Xasan Sheekh waqtigiisa uu kala maaday sidoo kalena dalka uu sharci darro ku joogo intaas ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal qodobadii wararka oo aan halkan idinku soo gudbinayay haddii aad ila soo gaartay dhamaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanayaa
inaad youtube-kana subscribe saarto sidoo kalena aad gambalaalka furato ka mid noqo saaxiibada halkan nagu heliya oo markasta aan ugu soo gudbino xogihii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka intaba